بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت وثلاثة بش نوفمبرنا واللحية اللباتنكي سنة كلا كون يصدحية طبعا. وحنا كان كسو تشيدنا يا بريس ريليس أما ورباهين صحافات وكسب سن سفر كان كوتشوجي مقالة بوساسو دوري طبعا مع الموضوع اللي صار دافي. سفر كاس وحن بوساسو كسو جاري سبتي اللي صار دافي أنا جو مشرحا حلك مدحتنمada dawladda Puntland sanadka 2014 intii aan joogay magaalada Boosaaso oo ahayd magaaladii aan ka shaqeyn jiray muddo fara badan dadkeeda iyo deegaankeedana aan aad u aqaano waxaan la kulmay qaybo fara badan oo kamid ah bulshada haday noqon lahaayeen isimada iyo dhaqanka haday noqon lahaayeen waxgaradka bulshada haday noqon lahaayeen uqaasha iyo nabadoonnada haday noqon lahaayeen dhalinyarada iyo bahda waxbarashada haday noqon lahaayeen jaamacaadka ku yaala magaalada Boosaaso iyo dugsiyada sare haday noqon lahaayeen dumarka haday noqon lahaayeen shaqaalaha dawladda iyo maamulka dalka haday noqon lahaayeen ciidanka iyo saraakiisha amniga dhamaantood waxaan ka wada hadlaynay arrimo ku saabsan Puntland iyo mustaqbalka 5 sano soo socota waxaana ka dhageysanayeen talooyin fara badan oo ku aadan bal siday u arkaan inay Puntland noqoto 5 sano oo soo socota inay Puntland ku dhaafto doorashada la filayo inay dhacdo 8 January 2014 cid ay rabaan sifada ay leedahay iyo tilmaanta ay leedahay waxay ka filayaan dawladda Puntland waxay ka filayaan musharaxiinta waxay ka filayaan dhamaan inta ku hawlan inay najaxdo doorashada ka soo socota Puntland waxyaalaha ugu fara badan ee talasiintu waxay ku aadanayd inay Puntland ka dhacdo doorasho 8 bisha January ayna muhiim tahay doorashadaas inay waqtiga dhacdo maadaama ay tahay doorashadii shanaad ee soo marta Puntland doorashadii afraad baan leeyahay madaxweynihii shanaad waxayna u arkaan in waqtiga la ilaaliyo inay muhiimad u tahay mustaqbalka iyo jiritaanka Puntland waxay kala soo jeediyeen inay dhacdo doorasho nabad ah oo xalaal ah in dhammaan la iska kaashado sidii Puntland ay u noqon lahayd mid ku guuleysata inay u tartanto si xalaal ah si nabad ah tartamayaasha dhamaantood oo ka mid yahay madaxweynaha hadda xilka haya iyo inta kaleba inay iska kaashadaan sidii ay u hirgelin lahaayeen doorasho Puntland ay ku faanto siday taariikhdeedu ahayd 15 sano la soo dhaafay waxay aad u danaynayaan in Puntland horumarinteedii xagga ganacsiga iyo xagga kaabayaasha dhaqaalaha intuba ay ka hooseeyaan siday dadku filayeen waxay dadku rabaan in ay noqoto mustaqbalka Puntland mid soo jiidaysa horumar xagga dhaqaalaha ah ganacsatadeeda oo ku soo noqota ka qayb qaata maamulka dalka cashuurta oo wax laga bedelo iyo waliba in la dhiirigeliyo wadanka in maalgelin lagu sameeyo waxay dhamaantood ka hadleen inay muhiim tahay in miisaaniyadda dawladda loo baahan yahay in la fariisiyo waxa cad inaysan shaqaalihii dawladda muddo mushahar qaadan waxa cad inaan shaqaalihii amniga oo booliiska iyo daraawiishtu aanay mushaharkooda muddo helinin arintaasi waxay abuuri kartaa khalkhal xagga amniga waxayna keeni kartaa in dadku ay ku kalsoonaan waayaan maamulka iyo cashuuraha iyo systemka maadaama waxba aysan iska bedelinin cashuurtii dalka iyo dadka laga qaadayay waxay rabaan inay arkaan in isbedelkaasi uusan keeninin inay kala daadato nidaamka dawladda Puntland hadduu noqon lahaa mid ciidan hadduu noqon lahaa mid maamul hadduu noqon lahaa mid dawladeed hadduu noqon lahaa mid gobol hadduu noqon lahaa mid degmo waxay aad iyo aad u danaynayaan in si gaar ah loo ilaaliyo ciidanka amniga dalka in mushaharaadkooda meel la saaro in la siiyo khadamaadka ay u baahan yihiin haday noqon lahayd dhinaca caafimaadka haday noqon lahayd dhinaca noloshooda wax laga bedelo iyo waliba haday noqon lahayd in la siiyo mushaharaadkii ay soo dhaafeen bilihii soo gudbay aan waxba la siinin waxay ugu dambeyn aad moodaa inuu isugu imaanayo dareenkoodu inay Puntland maanta u baahan tahay inay noqoto tusaale caalamka Soomaaliya iyo dadka laftigiisaba rajada ay ka qabaan musharaxiinta oo madaxweynuhu ka mid yahay waxa weeye inay uga tagaan Puntland taariikh wanaagsan oo nabad ah oo cidii soo baxda lagula shaqeeyo
ciddii laga guulaystana ay ku qanacdo in shacabku dareenkoodu yahay. waxay kale oo tilmaameen ugu dambeyntii in loo baahan yahay Puntland inay hesho nidaam fadhiya xagga maamulka iyo xagga waliba doorashada aysan loona baahan yahay inay shacabku ka qayb qaataan doorashada dalka iyo waliba qaabka musharaxiinta loo dooranayo. waxaan aad ugu kalsoonahay dareenkii aan ka qaatay bulshada magaalada Boosaaso inuu ahaa dareen aad iyo aad u wanaagsan, dareen iyo didiilo leh, dareen ka tarjumaya aniga waraahdaydii ugu horeysay maalintu aan sharaxay oo ahayd Puntland inay ka dhici doonto doorasho nabad ah oo xalaal ah. waxay soo jeediyeen inaanu anagu musharaxiintaahi oo madaxweynuhu naga mid yahay aan wada fariisanno si walaaltinimo leh, si leh ma garanaysaa mas'uuliyad ugana wada hadallo wax alla wixii taagan oo loo baahan yahay in meel la saaro, sida guddiga khilaafaadka, sida ilaalinta amniga iyo waliba inaan ciidamada dawladda kulligood laga wada rarin magaalooyinka iyo degmooyinka ee loo daayo inay degmooyinka joogaan, ciidanka magaalada caasimadda joogaana in lagala tashado qaabkii hawsha ay u fulin lahaayeen. waxay su'aal iga weydiinayeen kulanka aan la qaadanay beesha caalamka, kulankaas oo ku soo gabagaboobay inay kulligood doonayaan inay Puntland ka dhacdo doorasho wanaagsan oo xalaal ah. aad iyo aad baan ugu mahadinayaa in alla intii igala qayb gashay talada oo igu horeeyaan waxgaradka, ganacsatada, dhalinyarada, dumarka iyo beesha saxaafadda ee magaalada Boosaaso. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.